Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Aamino Qorne. Waxaan ka mid ahay walaalaha ku guulaystay shirkadda Ombasi fursaddii koowaad ee loo yaqaano Founderska. Waxaan jecelahay inaan u bushaareeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Gaar ahaan waxaan jecelahay inaan si khaas ah ugu bushaareeyo walaalahayga Soomaaliyeed ee shirkaddan igula jira ee ku soo biiray ay qaybna weli ay iibsadeen wax qaybta kalena aan waqtigu weli u saamixin in ay iibsadaan productiga u horeeyay ee noo soo baxay ee la yidhaahdo oo connecti kaasoo ah mid ay qiimihiisa uu ahaa $240 hase ahaatee duruufaha iyo waqtiga ama fahanku uu u saamixi waayey in ay gataan. Walaal bushaarayso Soomaali kasta oo hooyo kasta oo walaal kasta wiil iyo gabadhba ee ku jira shirkaddan Ombasi waynu guulaysanay. Alxamdulillaah, ilaahay baa mahad iska leh. Way ilaahay ayaa ina garansiiyey inaynu is-register garayno oo magaceenna iyo aan ku qorno iyo gmailkeenna kadibna aynu soo galno sida aynu u galno meelaha kale ee social mediahaba intaa in leeg ayaynu ku soo gallay. Inta social mediaha sida TikTok oo kale gmailkaaga magacaaga ku soo gashaa iyo username aad samaysatay, Facebook oo kale dhammaan meel kasta. Iyadana shirkaddan dhan waxa aynu ku soo gallay keliya magaceenna, magacaaga oo saddexan iyo gmailkaagii username aad jeceshahayna waad samaysatay. Kadibna waxaad gudaha u soo gashay goob aad u qurux badan oo loogu talagalay in aad ka dhex adeegato oo wixii aad karaankaaga ahayd iibsan kartid aad ka iibsato, wixii free ahee dhex yaalana aad si free u isticmaasho. Welibana kuwa freega ah isticmaalkoogu wuxuu kuu sahlayaa inaad dhaqaale ka samaysid. Dhaqaale ayaad ka samaynaysaa. Every product kasta oo Ombasi dhex taalla adiga dhaqaale ayaad ka samaynaysaa. Sideed u ka samaynaysaa? Iminka waxaad isweydiisaa Onet baynu haysanaa. Waa platform koobsaday dhammaan waxyaabihii social media. Hase ahaatee platformkaasi free buu inoo yahay. Hadduu free inoo yahay xisaabiyo TikTok free ayaynu ku gallaa, aynu ku isticmaalnaa. Laakiin dad kale TikTok lacag ayay ka sameeyaan. So adigu markaad haysatid Onet ood Otrim haysatid ood haysatid Omail ood ogtiin intee lacag bay Gmail samaysaa iyo Hotmail iyo inaguna Omail baynu haysanaa oo weliba AI ku shaqaynaya. Adduunkuna walaalahayga Soomaaliyeedow maanta inaad indhaha xidhaan maahe hooyo qof kasta oo wax fahmi karaya uu dareemi karaya in adduunka u guuray hab online xagga shaqada laga baxay hadday tahay wixii la iibsanayay, hadday tahay waxii la isticmaalayay, dhakhaatiirtii, everything waxbarashadii online baa loo guulay. Adigoo gurigaaga jooga ayaa adduunkii wuxuu noqday qoobad yar oo gurigaaga aad dhex joogtid oo kale ah. Adduunku waad ogtiin walaalo AI baa la isticmaalayaa iminka. Waa wax aad adduun wadamadii wax walba ay ka qaylinayaan haddeer isticmaalkeegii qolo kasta ku tartamayaan dadkii xumaanta u isticmaalayay dadkii wanaagga u isticmaalayay. Inagana shirkaddan ay dhahay gacanta inoo soo geliyey Ombasi waxay isticmaalaysaa AI iyadoo u isticmaalaysaa habka wanaagsan, iyadoo u isticmaalaysa in ay bini'aadantinimada wax ka qabato, inay waxbarashada wax ka qabato, inay gaajada wax ka qabato, inay dadka dhaqaalahooga sida fudud loo lunsanayo wax ka qabato, inay shirkadaha burburaya ee maanta hawada kasii baxaya ee businessyada ah in ay wax ka qabato oo ay ku ilaaliso businesskoodii. Qof kasta oo isticmaala wuu guulaysanaya ama shirkad ahaw ama qof bini'aadan ahaw.
haddii aad fahmi lahayd walaalkayga Soomaaliyeed gacanta waxay noogu jiraa wallaahi baan ku dhaartay hurdadu way kugu yaraan lahayd mar kasta waad isqajirin lahayd waxaan lahayd ama waxaan miyaan haystaa ma run baa shirkadan miyaan ku jiraa aniga runtii ma qaadan karo dreamkaygan lahaa riyadaydan lahaa waxa aan ku fikiri jiray waa in ilaahay soo geliyo waxyaabaha noocan oo kale ah aad baan ugu fikiri jiray waayo hooyo marka hore waxaan ahaan jiray qof dhalinyarnimadeedii shaqaysan jirtay qurbaha markay soo gashay xaasli noqotay caruurteedii iyo ka fikirta uun qoyskeega oon shaqo tegin laakiin waxaan dareemay inay jiraan hab aan maxaan ku dhahay anigoo caruurtaydana dhinac ka haysta xaaska howlahaygiina ka maamulanayo gurigaygii haysta in haddana aan dhaqaala samayn karayo waan raadiyey wixii aad raadisaana maxaan ku idhahdaaye isku dayda ama doontaana mar unbu gacantaada soo gelaya markuu soo galo yes wax xun wuu kusoo gelayaan wax wanaagsanna wuu kusoo gelayaan laakiin waxa wanaagsani waxa xun markuu kusoo galo waa inuuna saamayn kugu yeelan aniga shirkaddan waxa iiga horreeyey 3 bilood aniga oo ku jira onlineka waxaan la yidhaahdo ayaan shirkaddan ogaaday kadib on soo galay 3 bilood iiga horreeyey runtii wixii aan onlinekii aan isticmaalayay waqtigaa ku jiray wax maxaan ku idhaahdayay khibrad ah mooyaane wax dhaqaalo iga kordhimi jirin laakiin alxamdulilah wallaahi baan ku dhaartay yacnii waan haystaa ababkoogii 2 shirkadood oo ka horreeyay oon soo galay oo weliba kuwa scammerska ah ababkoogii waan haystaa weli waan haystaa sababtan u haystana waa maxay waddadii aan ku riyoonayay ayay tuseen waayo maan dhegaysan kareen manaan maqli kareen maalintu cabdi calis uu ka sheekeynayay shirkaddan maan aqbaleen markay igu soo casuuntay walaashii igu soo casuuntay shirkaddani inaan maxaan ku idhaahdaaye aan kasoo mid noqdo maan maxaan ku dhahaa aqbaleen haddii aanan dhegaysanayn dhegahayguna ayna maqlaynin wixii uu ka sheegayay guddoomiye cabdi caliso alxamdulilah ilaahay baa mahaddaa iskale walaalo waxaynu haysannaa wax runtii aad u qaaliya waad guulaysatay marba haddii aad shirkaddan soo gashay alxamdulilah mar labaadka waxaa lagaa rabaa shirkaddan waad soo gashay haddaad wax iibsatay waad iibsatay haddii aanad iibsanna maalinta ay maxaan ku idhaahdayay wax jeebkaagu goynaya ku soo maraan iibso maalinta maxaan ku idhaahdayay lagu yidhaahdo walaalo offerify garee oo yacnihii isticmaal offerify waxa weeyi productiga shirkaddan waxay samaysay in waxaan dad ahayn ayna meesheeda ku jirin qofka ku jira waa in la yaqaanaa maaha oo iska dulfadhigan facebooka candira baqashdan maxaan ku idhaahdaye social mediaha kale layska waxa 100 akoon oo kala wada noocaad iska samaysanaysid maaha akoon baad samaysatay they have to know you inay ku yaqaanaan sababtay ku rabaan inay ku yaqaanaanna waxa weeye waayo waxaa lagu hoos keenayaa oo linkigaaga laga iibinayaa maxaan ku idhaahdaaye shirkado iyo dad magac leh so qof aan laba garanaynin dukaankiisii loogama iibin karo maxaan ku dhahay alaabtiisii dad maxaan ku idhaahdaaye hore u maray ama shirkado hore u maray ama dad maxaan ku dhahay dad maxaan ku idhaahdaaye magac leh loogama iibin karayo waa in la yaqaanaa qofka wax looga iibinayo waa in la yaqaanaa so walaal kasta oo shirkadda ku jira waa inuu diyaarsadaa sharcigiisii sharciga waddankaagu uu kuu shaqaynaya dhammaan soomaalideenna sharciyadu way wada shaqaynayaan isku day inaad maxaan ku idhahdaye idga waddankeenna aad wada qaadataan maxaan ku idhahdaye ood gacanta ku haysatid oo maalinta sharcigaaga soo geli lagu yidhaahdo adigoon shilin iibsan aad sharcigaaga samaysid taasi maxay kaa caawinaysaa in aad sugi kartid maxaan ku idhahdaye intaad gaadhasid lacag alaab jaban ood iibsan kartid waa haddii aan waqtigu kuu saamixi karin ama waxaad sugi kartaa intay maxaan ku idhahdaye boynis bay shirkaddu bixisaa boyniska kuway bixisay lacagahay ku siisay adiga oo frify sameeyey oo sharcigaaga geliyey boyniska ay ku siisay ee sida ofrify ay kugu siisay inaad wax ku iibsato aashun faarax afkiisa ayaan ka hayaa 10 gini eed markaad soo gelasid waxaa jira 10 gini oo coin la yidhaahdo oo shirkaddu ku siinayso waa soo gelista soo gashay hadda
toban kalena shirkaddu waxay ku siinaysaa oo verify marka samaysid ee sharciga ay gelisid $20 wuxuu sheegay in aad ku iibsan kartid productyada qaar ka mid ah laakiin waa marma waa marka aad oo verify samaysid ee sharcigaaga gelisid sida loo gelinayo iyo wax walbana waa lagaa caawin doonaa marka walaal maxaad u baahan tahay adiga waxaad u baahan tahay ha noqonin maxaan ku idhaahdayey bahalkii siday macdanta dameerkii siday macdanta ee aan ogeyn wuxuu sido ha noqonin ee qiimaha waxa aad korkaaga ku sitid iyo waxaad ku jirtid ogow walaalo isku day inaad baratid baro maxaad u baran weyday maxaad shirarka uga soo qayb geli weyday maxaad kuwa maxaan ku idhaahdaaye ajaanibka u dhegaysan weyday khibrad badan baa kaaga kordhaysaa xataa aanad luuqadda fahmi karaynin ash mufaarax markuu hadlayo waad dareemi kartaa feelingska waad dareemi kartaa qofkaas siduu u hadlayo wuxuu ka hadlayo yacnihii inuu qof maxaan ku idhaahdayey wax beena aan sheegayn oo bili-aadantinimadu ka dhab tahay oo siduu u hadlayo waad dareemi kartaa marka isku day in aad maxaan ku idhahdaye kulamada kasoo qayb gashid taasi waxay kaa caawinaysaa in aad fahantid waxaad sitid kadibna maxaa kuu fududaanaya in aad sii gaadhsiisid walaaladeenna kale ee soomaaliyeed qof kasta ehel baa ku xeeran hadday reer abti tahay hadday reer ayey tahay hadday reer adeer tahay ehelkaaga kugu xeeran walaal shirkadda way u baahan yihiin sidaad u gaadhsiin kartaana waa in aad barataa oo maxaad baranaysaa waxaad baranaysaa sida loo soo galo sida maxaan ku idhaahdayey qofku uu maxaan ku idhahdaye u saxeexayo waxaad baranaysaa sida lacagta loogu shubo walaalo badanoo waxaad arkaysaa khalad ay iyagu samaynayaan maxaan ku dhahay lacagta uga khaldamaso yes weydii waa inaad weydiisaa gruubka markaad ku jirtid haka qajilin inaad gruubka su-aal soo dhex dhigtid oo tidhaahdid lacagta sidaan ugu shubanaya haddii lagu yidhi 100 bixi oo lacagtu $100 tahay de $100 haddaad 2 jeer kala dirtid de saa iyagu kumay odhan 2 jeer soo kala dir lacagta kumay odhan 240 hal mar inaad wada dirtid iyada oon 1 ka dhinayn baa lagaa rabaa haddaad se marna 100 ku shubtid marna 240 ku shubtid de walaal way kaa khaldamaysaa waxaaga dib u dhac buu keenayaa marka waxay u baahan tahay inaad marka horeba baratid wax degdeg la yidhaahdaana ma jirto degdeg wax la yidhaha ma jirto waad guulaysatay walaalo soo gelistaad ku guulaysatay ha u fikirina sidii kambaniyadii hore ka gaadhsiiska ahaayee allah haddii aan maanta maxaan ku idhaahdayey intaasoo qof keeno lacag intaasaan helayaa intaas hebel qof kasta maxaan ku dhaha 25% baan ka helayaa no maaha haw qofkaad register garaynaysid eed keenaysid ha u fikirin inaad lacag ka helasid waa inaad u fikirtaa alxamdulilah wallahi maanta proud baan ahay qof soomaaliyeed ayaan shirkadii kusoo daray noloshiisa waxbaan ka bedelay yes noloshiisa waxbaad ka bedeshay qoys dhan oo soomaaliyeed baad noloshooda wax ka bedeshay markuu qofkaasi maxaan ku dhahdaa kula fahmo ee uu isregister gareeyo waayo beri ka maalin walaalkaasi wuxuu maxaan ku idhaahdaaye awood u yeelanayaa in uu qoyskiisii iyo ehelkiisii dadkiisii uu kofeeyo wuxuu kaluu awood u yeelanayaa qofkaasi in uu isaguna dadkiisii usii sheego fariinta qof kasta u sheego waxaad ku tidhaahdaa walaala shirkaddani kuguma qasbayso oo kuma laha dad keenso yes kumay odhan marketing ii samee kumay odhan youtube ii samee ii fadhiisa kumay odhan maxaan ku dhahay social mediaha magacayga ka sheeg uma baahna shirkaddu adiga ayaa u baahan laba meeloodba waad uga baahan tahay aakhiradaadii waad uga baahan tahayoo walaaladaada soomaaliyeed ee kale mid kasta oo maxaan ku idhaahdaaye hal qofna ha ahaatee oo soo gala shirkaddan oo ku soo gala waxaad u sheegtay alxamdulilah qofkaasi uurkiisa kuu ducaynay afkiisu hadduuna xataa kuu ducaynin beri ka maarin marka uu midhaha gurto gurashada midhihiina wax yar baa inooga hadhay walaalow degdega aynu iska dayno shirkaddu hawlo badan ayay inaga darteed u wataa wuu awoodaa ninkan inuu iska aamuso hawshiisana u wato laakiin ma rabo wuxuu rabaa inuu bili-aadanka noloshooda uu kor u soo qaado dareensiiyana adduunka isbeddel intuu ku sameeyo uu dareensiiyo in maxaan ku idhahda uu la wada yeelan karayo oo maxaan ku idhahdaa dadku wax ku wada fillaan karayo intuu rabo waa intaas
waa runtii hadeer maanta maxaan ku idhaahdayey uu isagu sidan sameeyo shirkado badan oo kaloo ku dayan doonaa way jiri doonaan laakiin kolley marnaba wadnahii qalbiga ashmi faarax cid keenaysaa ma jirto waayo iminka xataa kowda bishan disembar ee nagu soo socota wuxuu ugu yeedhay ashbam ayuu yidhi ayaan idii sheegi doonaa wuxuu ashbam ugu bixiyey calashaan wuxuu ku leeyahay dadka kale cid igu aqbalaysaa ma jirto laakiin isagu wuxuu go'aansado lacagta agtiisa waxba kama aha ma lacag buu bixin doonaa ma yacnihi ma akawnada something kaluu samayn doonaa we don't know ma garan karayno laakiin waa war aad farxad u ah oo aanu ilaahay ka baryayna inuu nabadqabi nagu wada gaarsiiyo qof kasta oo maxaan ku idhahdaa shirkaddan ku jiraana ay tahay inuu maxaan ku idhaahdayey uu warkaa maalintii uu sheegi doono uu maxaan ku idhaahdayey uu soo diyaar garooba inuu dhegeysto oo uu dhegihiisa ku maalo yes yacnihi shirkaddani waxyaabaha cajiibka ah ay samaysay waxaa ka mid ah founderska $97 ayaa lagu soo geliyay hadda sida free baa lagu soo galaa shirkaddan laakiin waqtigaa waxaa lagu soo geliyey $97 $97 wuu soo celiyey bishii abril ayaana loogu soo celiyay akawnadeeda okay hadda ayaan wax ku iibsanay $97 ee qaar kayo dadka founderska qaar 5 sano ka hor laga qaaday marka walaalo waxaan kugula talinayaa walaal kasta oo Soomaaliyeed waxaan kugula talinayaa baro shirkaddan baro walaalo ma aqaano Soomaali ma aqaano luqadda Ingiriisiga uma baahna luqadda Ingiriisiga Soomaaliga geyso Soomaali geyso ku akhriso hadda Soomaaliga garanaysid maba garanaysid Soomaaliga kulamada ka soo qayb galo dhegahaaga ku maal inta dadku leeyihiin intaas ayaa kugu filan inta markaad maashid aad maxaan ku idhahdaa fahantid walaalo badan oo waxa jira maxaan ku idhahdaa shirkadda 24 hours ka hadla oo YouTubers dhegeyso wax badan baad ka fahmi doontaa walaalo kadibna waxa kuu fududaanaysa inta aynay fursadani inaga xidhmin inaynu hello Soomaali badan oo ka faa'iideysata shirkadda waa guul wax kale aniga igama hadlinayaan kaliya waa inaan arko Soomaali fara badan oo shirkaddan soo gashay the more haddaynu leyd ka nimaadno Soomaalideena oo shirkaddan maxaan ku dhahaa xilli dambe oo sii xidhmasa aynu nimaadno sidii founderska inagu dhacday oo kale waayo founderska waxaanu ogaanay xilli ay xidhitaankii ku dhow yahay waxba waa laga gaarsiin kari waaye dadkii fahmay markiiba fahmay way ka gaarsiin kari waayeen inay xidhan shirkaddani maxaan ku idhahdaa xidhitaankeygii ay xidhisay foundernimada iyo maxaan ku idhaahdayey maqalkii Soomaalidu maqashay waayo bishii afraad baan maqalnay oo gudoomiyaha dadkii ugu faraha badnaa hore uu uga hadlayay Facebook dad maqlay way jiraan laakiin dadkii ugu faraha badnaa ee shirkaddu markay soo gashay waxay ahayd bishii afraad markii uu maxaan ku dhahay gudoomiye Cabdi Cali Sow maxaan ku dhahdayey uu sum ku soo galay markaas ayna Soomaalida intii u badnayd oo ilaa 700 bay ahaayeen Soomaalida lagu qiyaasaa tiradooda laakiin intii u badnayd waqtigaas ayay soo galeen wixii ka dambeeyay bishii 6 way isxidhay waad dareemi kartaa inta u dhaxaysay laakiin haddii walaal kasta isku dayo oo dhexda xidho uu isku dayo inuu maxaan ku dhahdayey faafiyo shirkaddan waxaan hubaa inaa kumaakum Soomaaliya aynu maxaan ku idhahdaa fursaddu marka koowaad baynu uga faa'iideyn karno way soo wada geli karaan soo walaalaha aqoonta leh walaalaha dhalinyarta ah ee wax fahansan ee social mediaha ku soo jiray ha ka aamusna shirkaddan ee ka hadla lacag maanaan arag in adduunyo kamaanaan arag laakiin way imanaysaa yes way imanaysaa waa shaki la'aan waayo waxaad dareemi kartaa qiimaha waxaynu haysanno haddeer waxaan isticmaalayaa oo connecti oon videogan idinka soo dhex duubaya waa shirkadda productigeegii weeyaan haye waad dareemi kartaan wixii ayaa itus oo itaabsi weeyaan productigii shirkadda ayaan isticmaalaya haddeer oon kaala soo dhex hadlaya ma isticmaalayo wax kaloo broadcasting kale ma isticmaalayo marka walaalo aynu maxaan ku idhahdaa qalbiga iyo niyadabaha loo sii daayo ha la isku dayo in shirkadda laga faa'iideysto inta ayna xidhmin aad iyo aad baan dhammaan walaalaha Soomaaliyeed idii wada salaamaya runtii wax kale oo idin idhaahdo oo aan maxaan ku idhahdaa ma jirto intaasaan insha Allah idinku soo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu